iyo Mawlid Haji Cabdi. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal niyad same iyo kala gacayl ugu soo dhawaada barnaamijkii falanqaynta ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah garabta maxaa kala haysta Arsenal iyo Chelsea kulanka Wembley Stadium ku dhex maraya ee ciyaarta ugu dambaysa koobka FA Cup-ka falanqayn ayaan arrintaasi ku sameyn doonaa ciyaaryahankii ugu qaalisana ee abid qaaradda Afrika lacag lagu kala gato ayaa lagu dhawaaqay waa kuma kooxdaasi ayuu u wareegay oo nasiibkaasi heshay waxaan kaloo eegi doonaa PSG oo xalay koobkii lixaad la hoyatay iyo weliba qodobo kale oo xiiso leh aan ku bilaabay Arsenal waxay u heelan tahay ciyaarta maanta ay fooda isdarayaan Chelsea ee finalka FA Cup-ka sababtoo ah ciyaartooydu waxay doonayaan in ay badbaadsadaan xilli ciyaareedkooda sidaasi waxa BBC-da qaybta ciyaaraha u sheegay weeraryahanka reer Faransa ee kooxda Qorileyda Alexander Lacazette Arsenal oo koobkan ku guuleysatay 13 mar ahna kooxda ugu badan ayaa shaxda kala horeynta horyaalka ku dhameysatay kaalinta 8aad taasi oo ka dhigan inaanay ka qayb gali karin ciyaaraha Yurub haddii aanay ku guuleysan koobka FA-ga ee maanta la isku mindiyalisanayo dhinaca kale tababaraha kooxda Chelsea Frank Lampard ayaa isna wuxuu kooxdiisa u sheegay in aysan ku guuleysan karin koobkan haddii ay noqoto inay culays isi saaraan Chelsea oo iyadoo mar horeba u soo baxday wareegga isreebreebka Champions League maadaama ay ku dhameysatay kaalinta afraad ee Premier League ayaan culays badan saarneen laakiin Arsenal ayay tahay in haddii ay doonayso inay Europa League u soo baxdo ay ku guuleysato koobkan caawa loo tartamayo haddaba Cabdirasaaq Binde oo ah wariye ka faalooda ciyaaraha oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaan goor dhaweeyto weydiiyay labadani kooxood waxa ay markaasi la soo shirtagayaan iyo sida ay noqonayso ciyaartani adag waliba waxa jira kulan xiiso badan oo daawadayaashu ay sugayaan waa kulanka u dhaxeeya kooxaha Chelsea iyo Arsenal ee ka dhici doona Wembley kulankan waxa xiiso gaar ah u yeeraya labada macallin waa macallin Mikel Arteta iyo macallin Frank Lampard waxa la isweydiinaya tolo macallinkeeba caaw kooxdiisa koobkii ugu horeeyay kula guuleysan doona macallinka reer England mise macallinka reer Spain inta marka laga yimaado wadarta guud ee labadan kooxood kulmeen waa 19 jeer 8 jeer oo kamid Arsenal ee guul gaadhay 5 jeer oo kamid kooxda Chelsea 6 jeer oo kamidna barbardhacay galeen wadarta guud ee iska dhiriyeen waa 49 gool marka la eego tartanka FA Cup waxa la isweydiinaya tolo caaw Arsenal ma dhigi doontaa taariikh cusub markii 14aad ma ku guuleysan doontaa tartanka FA Cup-ka mise Chelsea ba mar kale ku guuleysan doontaa oo markii 9aad labadan kooxood maaha markii ugu horeysay final noocan ay isku hor yimaadaan 2002 baa jirtay 2017 baa jiray labada marba waxa ku guuleystay kooxda Arsenal waxa xusud midan Mourinho in labada kooxood ay laba ciyaarto oo ka kala yimi ay iska soo horjeedaan waa ciyaartooyga David Luiz ee u dhashay dalka Brazil iyo ciyaartooyga u dhashay dalka Faransa ee Giroud kula guuleystay kooxda Arsenal tartankan maxalliga ee laga ciyaaray dalka Ingiriiska ciyaartooyga David Luizna tartano fara badan buu kula guuleystay kooxda Chelsea sidoo kale su'aalaha inta badan la isweydiinayay calaamad su'aal ku saaran waxa kamid ah caawa yuusuf qadimi doona macallin Frank Lampard ma goolhayaha reer Spain ee kiba mise goolhayaha reer Argentina ee Calabero keebu soo qadimi doona baa la isweydiinaya su'aalahaas inta badan mucaashiqiinta kubadda cagtu maskaxdooda ka guuxi doonaan runtii waa kulan xiiso badan oo daawadayaashuna aad u sugayaan kulli waxaan isleeyahay wax lagu kala badan karaa waa weerarka iyo khadka dhexe labada kooxood oo ognahay difaaca way ka liitaan 4 iyo 5 la oran karo way adigin oo khibrad wanaagsan bileyn ma jirto David Luiz oo ognahay inta badan gool kulaadyo ayuu sameeyaa oo khaladaad ah oo kooxda Arsenal laga dhaliyo difaaca kooxda Chelsea gool baabay sababaan inay iska dhalin karaan oo suuma iyo Rudiger runtii inta badan khalkhal ku yimaada waxaan la isweydiinayaa tolo caaw ma joojin karaan ciyaartooyada Lacazette iyo Aubameyang difaacyada Arsenal ma joojin karaan Pulisic iyo Giroud su'aalahaas inta badan la isdhex weydiinaya bal markan aan eego fikradaha qaar kamid